الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جامعة هون انترناشونال يونيفرسيتي waxaa soo qabanqaabisay dood cilmiyeed ku saabsan mid ka mid ah xanuunada faraha baan ku haya guud ahaan dhulka Soomaalidu ay degto oo ah xumadda gaar ahaan gobolkeennan oo sida aad ka warhaysaan dad badan ay u jiifaan isbitaalada haba ugu badnaadeen dadka waaweyn iyo caruurta Dr. Sakariye maamulaha jaamacadda hoose sidoo kalena la socon medical maamulka ayaynu runaa bal xeeraha ku ogyahay xumadan sida aadka ugu faafaysa guud ahaan dhulka Soomaalida inaynu warbixin ka dhageysano wareen Sakariye waxa la barayo oo sharaxaad inooga bixiyo qandhadan iyo waxa ay tahay iyo asaliyan meesha ay ka timi soo dhawaad بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحويا موضوع ما أنت كهذا أن مجا اللوجية عاديا وحالي هذا dengue virus infection وحلي تاريخ دير بوليه هاي قندنا كانت نوع كمذا كان يعضو اللوج مجا عابو dengue virus وحالة الماما على مدى هذا ما كان لقى قياس قاته إن الله بقول الصنو شرتي أمل يقاني marka laga duulayo marka calaamadaheeda laga duulayo laakiin waxa la identify gareeyay etiology-geeda ama waxa sababa xanuunka keena waxa la ogaaday oo la xaqiijiyay 1940kii dagaalkii labaad adduunka ayaa viruska keena nooca uu yahay la xaqiijiyay la ogaaday marka shay cusub oo hadda adduunka soo biiray maaha meelaha laga helo asliyan markaynu ogaano nooca uu yahay virusku ayaynu waxaynu ogaanaynaa waxa weeyaan waxa qaada marka waxa la tilmaamaa viruska family ama genus loo yaqaano Valavirus ayaa viruskan uu yahay oo ka tirsan yahay qoys ahaan ama marka family-ga la ableeyo cudurrada waxa uu yaray ilma aragtida jeermiska ah ee viruska la yiraahdo xanuunada keena nooc ka mid ah oo Valavirus la yiraahdo ayuu ka xanuunkan ka mid yahay waxaa la tilmaamay in afar nooc loo qaybiyo typeskiisa oo la kala yiraahdo type 1 iyo type 2 iyo type 2 marka la sheegayaan dengue virus 1 bay dhahan dengue virus 1 dengue virus 2 dengue virus 3 ilaa 4 bay dhahan afar nooc oo kala duwan buu leeyahay isagoo si qaybsamaa waxaa la tilmaamaa inay gudbiso kaneeco nooceeda loo yaqaano Aedes aegypti female mosquito waa nooc dhadiga oo magacaas leh marka ereyga Aedes baa la moodaya ma aha waa AEDES baa loo soo gaabiyaa Aegypti ayaa ka horeysa iyo la mid ah oo la moodayo dalkii Masar ama Egypti iyadoo ka duwan tahay baa ka horeysa Egypti iyo ka bilowdanaya magacoodu waxaa la tilmaamaa meelaha ay ku noolaan karto kaneecadaas waa xagee tropical iyo subtropical countries ay ku noolaataa waxaa la tilmaamaa marka la akhriyayo juqraafiga altitude-ka latitude-ka ama waxaynu Soomaaliyeed u yeedno lolka marka 45 degree lol oo xagga waqooyiga xiga ama 45 degree lolka dhanka waqooyi iyo 25 degree lolka dhanka koonfureed inta u dhaxaysa dalalka ah baa laga heli karayaa waxaa la tilmaamaa dabeecado cajiib ah inay kaneecadan leedahay dabeecadaheeda cajiibka waxaa kamid ah kaneecadan horta habeenkii uma badna cunitaankeedu waxa cuntaa maalintii kaneecada kale ay kaga duwan tahay cajiib ku tahay haween inay daytime-ka iyadu feeding-keeda raadsato oo waxa weeyaan waxa ay cunayso iyo dhiigan waxay isticmaalaysaa dhiigga bini aadanka ay ku noolaanaysaa marka dhiiggii ay ku noolaanaysay waqtiga loo yaqaanay waqti wadamada kale kaneecooyin kale ay ugu dhaca ama aynu naqaano waxa ka mid ah inay habeenkii u badan yihiin tan iyada maalinkii u badan tahay waxyaalaha kale kaga duwan tahay dabeecada kala duwan waxa ka mid ah in ay leedahay wax loo yaqaano aad dareemin marka ku qananayso oo aad waxay isaga ilaalisaa in la dareemo waxa kale oo cajiiba inay tahay mid si yar oo sahlan interrupt macnaha hadda si dhaqaajiso kale ama aad in yar dareenkaaga ay dareento inaad ama dareentay ama ay doonayso ma garanaysaa wax sahlan ama hawo yar ku dhacdo interruption bay ku sameynaysaa way interrupt garanaysaa kadib waxa la tilmaamaa ugu yaraan 5 qof ilaa 6 qof oo kala duwan inay maalintii qanani karto maadaama aysan dhamaysan dhiig ay u baahnayd oo marka in yar ku qanintayba ay markiiba duulayso oo waxay interrupt gareyn karayaan ayaa u sahlan oo qananaysaa ciyaalka iyo hooyooyinka sababtoo ah maxay dadka guriga jooga maadaama aynu niri bahashan maalintii aad wax u cuntaa ama aad u qeyntaa
dee habeennimadkii waxa weeyaan waa la wada joogaa laakiin maalinkii yaa guriga ku hadhaya oo dadka inta badan maatada ah baa ay aad u qaaninaysaa oo aad u cunaysaa arrimahaas waxyaalaha ay kaga duwan tahay kuwa kale weeye ay cajiib ku tahay waxaan yaa mudan inaanu tilmaan ka bixinno ma waxaa gudbin karaya oo keliya wax loo yaqaano kaneecadaas may marka laga hadlayo dhanka caafimaadka waa in barbariro fara badan la iska istaagaa goobo meelo fara badan waa in wax laga eegi karaya kaneecadu waa waxa ugu faraha badan ee keeni karaya xanuunka laakiin not the first and the only one ma aha ta u dambeysay tii horeysay xanuunkan keenaysay ma aha waxyaalaha xanuunka keeni karaya waxaa ka mid ah nosocomial infection waxyaalo loo yaqaano hostaalada laga qaadi karaya qaabka looga qaadi karaya biraha waxa loo yaqaano irbadaha iyo ku shubidda dhiigba waxaa la tilmaamaa xanuunkan inay qof haddii xanuunkan qabo oo active weli uu yahay in la qaadsiin karayo oo qofkii kale uu qaadi karayo tusaale ahaan oo kale adiga oo xanuunsanayay oo dhiiggii fayraskii kugu jiro ayaa dhiiggaagii lagu shubay qof kaloo caafimaad qaba percentage intee lag buu qofku qaadi karaya 25 ilaa 50% ayaa la tilmaamaa 25 ilaa 150 dadku inay qaadi karayaan marka qaarkood waxay tilmaamayaan inay percentage-kaasi uu yahay inay sidoo kale dadku qaadi karayaan vertical haddaad maqasho vertical transmission waxaa macnaheedu yahay waa in hooyadu ay ilmaha qaadsiin karayso marka iyadana waxaa la ogaaday baaritaano la sameeyo dheeraad ahayd haddii 10kii bari u dambeysay hooyooyinka xanuunkan ay qaadeen ama xanuunkan ma garanaysaa 10kii bari u dambeysay xanuunkan hooyadu ay qaaday ee dhalaysay macnaha 10 bari ka hor dhalmadeeda haddii xanuunkan qaaday waxaa la tilmaamaa in ay ilmihii qaadsiin karayso oo ku dhowaad 14 maalmood ama 11 maalmood kadib ilmihii markuu dhashay uu qaadi karayo mean age waxaa la tilmaamaa ilaa 4 bari markuu ilmuhu joogo inuu qaadi karayo waxa weeyaan hooyaduna markaa boqolkiiba 37 la yiraahdo bay qaadsiin karaysaa xanuunkan waxaa loo qaybiyaa qaabka loo qaado batankiisa laba qaybood oo la yiraahdo inuu epidemic noqday iyo inuu pandemic noqday inuu epidemic noqday iyo inuu hyperepidemic noqday marka epidemic waxaa laga wadaa marka xanuunka goobta uu ka dhacay nooca fayraska keenay uu hal nooc yahay markuu hal nooc yahay nooca fayraska xanuunka keenay waxaa loogu yeedhaa maxay epidemic baa loogu yeedhaa marka haddii ilaahay idankeeda ogol yahay uu yahay goobta xanuunka ka dhacay afartii fayraska kala duwanaa inay afartiiba keeneen marka qaabka noocaas oo uu yahay xanuunka meesha ka dhacay nooca uu yahayna hyperepidemic baa lagu sheegaa oo waxa weeyaan fayras kala duwan baa xanuunkii baa meeshii ku dhacay oo isla typeskiisa kala duwanaa marka uu ballaaran yahay runtii aad baa maasan tahay kolley fikrad guud ama concept guud waan ku haysanaa xanuunkan iyo mawduucyadiisa ku saabsan yahay doctorka waxaan rabaa inaan weydiiyo sidaynu ognahay qandhoodu dawa wax qofka keli u heli jirtay dadka naqaanay laakiinse xanuunkani muxuu u yahay inuu safmar noqday oo dad badan ay u jiifsanayaan oo la soo dhacaya very good waxaa hubaala xanuunkan inuu ka mid yahay xanuunada la yiraahdo xanuunada faafa runtii mar qura dad fara badan ku wada dhici karaya waxaa kalifaysa inay jirto wixii qaadayay ama garanaysaa factorkii qaadayay inuu maalinkii dad fara badan sida hore soo sheegay uu wada qaniini karayo marka safmarka waxaa ka dhigi kara tusaale kale duumadu caadiyan bay safmar u tahay duumada malaariyada loo yaqaano iyada lafteeda kanaaca ay keento laakiin kala duwan yihiin kanaacada nooca duumada keentay waxaa loo yaqaanaa female mosquito oo anopheles ah iyada lafteeda kiisii kale leh Stevensa nooca la yiraahdo ayaa inta badan keena marka tan waxaa kalifaya waqti waxay ku soo beegantay dhowr arrimood baa kalifaya oo taageero u ah inay safmar noqoto waxaa kalifaya number 1 facility garanaya density-ga mosquito inay balato density-ga mosquito waxa laga wadaa meelihii ay ku fidaysay ay ku koraysay ku badanaysay inay jiraan oo sida biyo fadhiisadka hadda jira barkadaheena caadiga ah waqti roobo uu yahay iyo sidii la halmaala maxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha yaab kale macnaha qodobka labaad noqon karaya in wax loo yaqaano uu jiro short mosquito duration ama short duration of the mosquito caadiyan waxaa la yaqaanaa marka caalamka laga hadlayo sayniska xanuunada la kala qaado 3 arrimood baa sal u ah 3 arrimood haddii la waayo xanuunka lama qaadi karayo 3 arrimood waxay kala yihiin waa in la helaa agentigii waa in la helaa hostigii waana in la helaa environmentigii marka inagu hadda wax loo yaqaano environmentigii factorku ka mid yahay waxaa factorka macnaha shaygan wax qaadaya cudurka gudbinaya ee kaneecada ah waxaa jirta factorka xanuunka qaada ayaa laba loo sii qaybiyaa marka laga hadlayo qaybta epidemiology laga hadlayo labada loo qaybiyo waxay mechanical factor inuu yahay iyo biological factor inuu yahay waa shayga wax qaadaya gudbinaya mechanical factor waxaa laga wadaa shayga intuu soo boodo intuu xanuunkii qaado
macnaha cudurkii qaado shay kale qof kale qaadsiin kara laakiin isaga gudihiisa aan wax isbedel ku sameeyay isaga gudihiisa wax isbedel ku sameeyay ka waxa loo mechanical factor waxa kamid ah duqsiga kale duqsigu wasakh buu qaadaya waxa laga yaabaa inuu koobka cabis shaan kugu keeno kadina wasakhdii ka qaadi jeermiska ka qaadi laakiin isaga dhexdiisa tadawur uu soo sameeyay oo jirkiisa uu soo dhaxgalay isbedelay ma jirto